maanta dhammaantiin wasiirada dowladaha xubinta ka dowladda dhexe iyo xubnaha baarlamaanada dowladaha xubinta ka dowladda federaalka iyo guddiga khayraadka ee aqalkan ee halka isugu keenay kulligeen aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinayaa. Soomaalidu waxay tidhaahdaa talo waa nabad waa, nabad waana nolol waa. taa micneheedu waxa weeye haddii aynaan tashan oo inaan tala meel dhigan aan isku ognahay dee dhibaato kama baxayna weeye, nabadna ma helayno. haddaynu nabad weynana nolol jiri mayso. dalkeenna ilaahay wuxuu ka dhigay dal nimco ah. hawada ugu fiican baynu leenahay, dhulka ugu fiican baynu leenahay, dhulka ugu khayraad badan baan leenahay. intaasoo leenahay haddana waxaan isleeyahay waxaynu nahay dal barwaaqo ah iyo dadka baahan. halkaasaynu fadhinaa. waxa weeye hawdkeenna dhulkeenna kolka la dhex marayo udgoonkiisa laga yaabi jiray ubaxa ku yaalla udgoonkiisa iyo sida uu yahay. maanta dhirtii sidaa ahayd dhuxul baynu ka dhignay oo waxaan u dhoofinaa dalal aan dhul iyagu dhirba lahayn gebigooduba, oo innaga in yaroo doolaara ah oo micno ay leedahay ayna jirin aynu siisanaynaa. marka ugu horraysa baddeenna intaa la egna waxa weeye waxaa laga dhigtaa qashinqubbaa laga dhigtaa. bay-addii dalkeenna waa la baabi'inayaa. waxaan filayaa innaguna inaynu gacan ku siino sidaa in loo baabi'iyo. waxaan soo jeedin lahaa, anigu khudbad dheer maanta kuma talagelin, waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa guddiga khayraadka ee aqalka inuu isu kin keeno oo aqalkan uu ku tala jiraa sharci kasta oo ummadda loo gudbinayo in laga wada qayb galo oo uu noqdo sharci waxtara. hadda kan aad gacanta ku haysaan waa kii beeyadaa qurxoonayd ee fiicnayd ayaa maanta waxay isu beddelaysaa meel laba degaan ah. dhirtii baan ka dhammaynay. waxa kale ee dheer deganaansho la'aantayna haysatay 45 sano oo aynu dagaaluun ku jirnaa, dagaal ahliya ku jirnaa, marka laga reebo kii 77kii ee aynu dowladda Itoobiya la galay, marka laga reebo inta kale oo dhan dalkeenna waxa ka socday dagaal inagu aynu istilayno oo ahli ah. waxa kale barbar socday intaa inaan jaraynay dhirta jaraynay. maanta waxaan soo jeedin lahaa anigu waxa weeye halka aan ka jarayno inaynu bilowno isku dayno qof waliba hal geed guriga uu degan yahay hortiisa inuu ka tallaalo, iyo in la sameeyo juhdi fara badan oo si guud aynu u qaadno oo aynu dhulkeenna dhirayn ugu dhaqaaqno. waa samayn karnaa oo waxaan xusuusnahay 70meeyadii bacaad celin la sameeyey oo hadda dhulkaasi uu ku badbaaday jidka isku xira xamar iyo ilaa marka isku xira. haddii aan la samayn lahayn bacaad celinta jidkuna waa go'i lahaa, webiguna directionkiisu wuu bedelmi lahaa. leesh bacaad baa xiri lahaa. kaa waa la badbaadiyey. waxaa lagu badbaadiyey dadweynaha Soomaaliyeed oo dowladdii wakhtigaa jirtay ay u jahaysay in aynu samaysanno. waa samayn karnaa kolkaynu u dhaqaaqno, waa samayn karnaa. magaaladan xamar quruxda magaalo haddaad maqashaan waxa weeye waa dhirta iyo jidadka laamiga. guryaha waa la dhisi karaa, dabaqyo dhaadheer baa hadda la dhisaa.
laakiin qof hal geed oo dhura ku beeraa ma jiro gurigaa dheer uu dhisayo qofkaas at least ha lagu daraan qabaa anigu guriga kolkaad dhisayso hal geed ku dar jidkaa ku horumarun hortiisa ka dhig waxa weeye markaa waan dhayn karnaa dalkeenna bayadiisana waa soo ceshan karnaa sidii uu ahaan jiray haddii aynu xoogga saarno hadda roobkii waa yaraaday sababtuna waxa weeye dhirtu roobkay soo jiidaa dee khayraadka kale ay qabta ka soko waxaan leeyahay guddoomiye waad mahadsantihiin guddigiinnu inaad isku keentaan intan oo aad ka tashataan sidii dhulkeenna bayadiisa loo hagaajin lahaa dalkeenna dib aan u soo noolayno waa la noolayn karaa sababtaa haddii laga shaqeeyo 77 China tagnay China waxaana la geeyey degmo Tachai baa la yidhaahdaa slogan bay leeyihiin Tachai ka baro beeraha 50 sano oo taariikhdaa laga bilaabo taariikhdaa ka hor maalintaa aanu joogno 50 sano ka hor dhulkaas siduu ahaan jiray bayna tuseen meel wax hal geedii uuna ku ool buu ahaa waqtigaa aanu tagnay 50 sano ka hor maalintaa aan joogno ama geed midhalabaa ku jaara ama geed hadlaa ku yaalla ama waa jidlaamiya ama waa guri kolkii horena waxaa naloo sheegay webiga u jira 400 oo kiiloomitir 400 oo kiiloomitir waliba technically iyo yani farsamadan casriga aan lagu sameyn gacantooda ay halkaa ka soo jiideen canal dhulkaa la keenay la waraabiyey la beeray oo uu kolkaa yahay dhul meel walba cagaar ah ama guri baa ku yaal ama geed midhale baa ku yaal ama geed cagaaraa ku yaal ama waa laan marka waa mitaal fiican ayayna siiyeen oo ah Tachai ka bara beeraha waa 400 oo kiiloomitir webiga u jira ayaa innagana isagoo halkan maraya ayay dhulkeennu uu yahay meel engegan webigiiba hadda uu inaga baabeeyo aan filayaa 30 sano siduu u aasmayey waxaan u galayaaba webigiiba waxaan filayaa wuxuu kolkuu biyo badan u keeno uu ina baabi'iyaaba marka waan idinku dheereeyey waxaan idin leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin barasho wanaagsan sidaas aad maanta isugu timaadeen ayuu aqalkani qolo mar kasta u sharci yimaado ayaan rabnaa in dowladaha xubinta ka dowladda dhexe ay ka soo qayb galaan baarlamaan ahaan iyo wasaarada ahaanba kolkaynu sidaa u soconno wax badan baa meesha ka baxaya isfaham la'aantii baa ka baxaysa oo waa la isbaranaya marka waxaan idin leeyahay aad iyo aad baad mahadsantihiin shirkuna waa inoo furan yahay guul baan idin rajaynayaa aad iyo aad baad mahadsantihiin